كن بعد كهذلي لا بعد كهذلي طبعا كن لا بعد كن صدق كن بنقرينا وأنا سيرنا حقوق ضد استدلاع يا أبو ماشي عرفت إيه بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku suganahay xerada BSF waxaan la wareegay hubkoodii ragga waa dhidibtirana waa wanaajinayna nimo talo in madaxda weeye waxaan leeyahay dadka soo qalday xajki taas hadii daba soo leeyahay aaraad gulyo ma tagan ay ma banaanka u baxay يا بحي waxaan maqli jiray guuldarradu hal aabbay leedahay ama ma jirtaba cid sheegata guushuna kun aabbe iyo kun hogaamiye ayay yeelataa shan bari ayaa laga joogaa markii weerar ballaaran oo maamulka Puntland ku qaaday xeradii ciidanka BSF ee duleedka magaalada Gaalkacyo halkaas oo khasaare ballaaran lagu geystay ciidamadii halkaasi ku sugnaa bilooyin ka hor ciidankaasi waxaa ku faanay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Axmed Macallin Fiqi wasiirka ka yahay ciidamada BSF ciidamada qaranka ay ku biireen hadaa sanatar safarolow aad Mareykan u ogoleeyeen inay mushaar siiyaan haddana waxa uu ogolaanaysaa dowladda Soomaaliya inay mushaar siiso ayada awlaaha ayada ka mudan ciidankaasna ciidan tababaran oo la dayici karo waxaad sheegtay 2021 khilaafaad dhacay ilaa hadda inay xayireen waxay dhawaateen karaan deegaamada joogan haddii aysan ciidan noqon dowladeed gowi gishmale waa dhihi karaan beesha raban bay dhihi karaan laakiin hadda ciidan dowladda Soomaaliya ay ku xisaabtamayso way taliyuuna waa sheegay ay ku xisaabtamayso shaqo qaran qabanaya habeennimadan caawi ah oo axad sii baxayso 9 August 2026 dowladda federaalka oo xamsanad julay muuqaalkiisa la wadaagay oo uu ciidankaasi ku faanayay isagoo dani ku dacaayadeynayo istilaaci Axmed Macallin Fiqina oo aqalka sare gaar ahaan Faroole uu ku leeyahay ciidankaas annagaynu hoos tagana dowladda federaalka hoos tagaan haddaan ku dhaho ka waran ciidamadaasi dowladdii ku faantay ee Puntland ku dirtay inaysan maantay xataa hal warqad oo tacsi ah aysan u dirin iska daa inay sheegatay waxaan halkan kula wadaagi doonaa sababaha ugu waaweyn ee dowladda federaalku uga aamusay ciidankeedii Puntland ay ka qoratay oo ilaa caawa kuwa kale lagu baacsanayo gobolka Bari iyo Puntland oo soo gabagabaysay dhammaan mashruuci Xasan Sheekh iyo kooxdiisu ay ka abaabuleen gudaha Puntland iyo Siciid Cabdullaahi Dani oo war weyn u sheegay dadka reer Puntland oo ah inuusan mar saddexaad u taagnayn madaxtinimada Puntland balse xisbiga ka oo uu ku ololeynayay doorashadii golaha deegaanka ee Puntland uu leeyahay musharax haddaba Dani arintaasi madhab ayay ka tahay mise indhaha dadka ayuu ku sii jeedinayaa barnaamijkan ayaan ku falanqeyn doonaa barnaamijkan soo dhawaada aad wada mahadsantiin aan ku bilaabo waxaan maqli jiray wax ku sheegta hal waaye ama ummadda islaamku ka dhaaratay dhammaanba ciidankii dowladda federaalku ay ku sheegtay inay Puntland ka qoratay waxaa loo dhigay saddex istiraatiijiyadood ay Puntland u wajahday wixii diiday inay isdhiibaan waa la laayay qaybna maxaabiis baa laga dhigay iyagoo wax naxariis ah loo sameeyo wixii isdhiibayna sida BSF Boosaaso iyo ciidankii beeshalka ee xeray Istanbul waa la wanaajiyay wixii aan labadaas wada midna marin waxa la siiyay wado ay ku baxaan waxaana kamid ah ciidamadii beeshalka biciidiyaan oo habeennimadan ku sugan deegaanka Xananbuure ee Galgaduud halka markay joogto ciidamadan waxay hoos tagayeen shakhsiyaad dowladda federaalka ka tirsan oo deegaanada Puntland ka soo jeedo qaybtood wasiirro yihiin qaybtood taliyaal waxaa sheegtay oo ku faantay isaan idin la wadaagay wasaaradda gaashaandhigga ee federaalka waxaa ku faanay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre taan ku dhaw ka waran caaway intaasiba kama hadlayaan guuldarrada dhacday bay ka aamuseen oo Soomaalidu waxay leedahay guushu kun aabay leedahay guuldarraduna cidina ma sheegata ama hal aabay leedahay ama cidii ku dhacday u gaartay ma siyaabo kale ay uga aamuseen baa jirta waxaan soo ogaaday 5 sababo dhowr sababood oo ah arintaasi
inay ka aamusaan qodobka ugu weyn waxa weeye waa guuldarrada ku dhacday oo la ligi waayey waxaa cajiib ah in xerada PSF ee gaalkacyo xerada danab ee dhanka galmudug ku taalla ay u jirto wax ka yar 200 oo tallaabo ciidamada danab ee halkaasi joogo iska daa gurmad ay bixiyaane xataa waxa ay ku dhiiran waayeen in ciidamo PSF oo dhankooda u baxsaday ay badbaadiyaan waxaana dhacday in ciidamo Puntland ah ay maxaabiis baxsatay ka soo qabtaan afaafka xerada danab ee dhanka galmudug indhahooda shanay daawanayeen ciidankii danab ee halkaasi joogay waxa halkaasi ka cad in xataa uusan jirin qorshe dhalinyaradaasi loo diyaariyey balaan B ah in gurmad la siiyo ama la taageero ama xataa dhaawacyadooda la soo qaaday maxaabiistooda inuusan jirin iyagana la maanyageeyey horta qodobkaas oo guuldarrada qodobka labaad waxa weeye xasan shiikh oo ka cararayo sawir inuu ku dhaco ah in dowladda federaalka oo ku fashilantay amnigii koonfurtu ay qalqal gelinayso maamulo nabad ah ama amni ah iyadoo shaabadaas ka cararayso ayay uga aamustay oo ciidanku soo ciidan qaran oo aqalka sare iyo ra'iisul wasaaruhu ku faanayeen ma ah xataa jab hadduu ku dhacay ama mataqaanaa dagaal intay galeen mataqaanaa dhibaato soo gaartay soo in la guuldarradooda dhabarka loo rito ma aha sidii shalayba loogu faanayo qoristooda qodobkaasna waa qodobka saddexaad wuxuu noqday waa mid iyagu ku andacoonayaan markaan xoga raadinay waxaan ka baqaynay in dani uu dhaho hawiyaan nagu soo duulay haddaan sheegan lahayn inaan dhahno ciidankaas annaga naga tirsan yihiin dani qiil buu heli lahaayo wuxuu oran lahaa xamar iyo hawiye baa nagu soo tuulay haddaan gurmad siin lahayn dagaalku wuxuu noqon lahaa daarood iyo hawiye gaalkacyana ka bilaaban lahay haddaad saas og tihiin inay noqonayso arrintu maxaad maamulka Puntland markii hore ciidamo uga dhex qorateen macnaheedu qodobkan qiil bay ka dhiganayaan xasan iyo xamsi hadday doonayaan amniga Puntland ama amniga gobolka mudug maxay waxaanu ciidana markii hore uga qorteen macnaheedu waxa weeye waa madaxa ciidda laga ceshanaya ila ma ahan xamse iyo xasan oo ka baqayo in dagaal hawiye daarood ka dhaco mudug inay uga joogeen dhibaatadii meesha ka dhacday inay sheegtaan iyagoo markii horeba gobolkan inuu sidaas dhibaatadaasi ka dhici karto iyagoo ogaa iyagoo ciidamadan ku qoray haddaba hal talaan siinaya ah ciidamada harsan caawa waxa lagu hareeraysan yahay ciidamo 3 beelood oo isku jiro oo qaybtood calmiskaad ka soo dagaalameen qodob waxaan leeyahay dani qodobna waxaan leeyahay ciidamadaas qodob waxaan leeyahay dani waxaan leeyahay horta dayac adigu aageysatay baa sabab u ah in wiilashii reer Puntland maanta xamar looga gacnaatay darxumo iyo dayac adigu aad u geysatay xuquuqdooda iyo aad duudsisay baa sabab u ah in inta daruufaha looga faa'iideysto la qorto oo hadhowna adiga lagaaga dhiga kaar cadaadin ah oo lagu yiraahdo isdilaaci ama ciidamada Puntland noo jooga federaalka ku jira mushaar baasin mar dambe ayaysan soo laaban waa haddaad qof bini aadan oo caqli ku jira aad tahay ciidankaas ciidan reer Puntland ay ahaayeen inay xamar gacanta u ritaan maanta inay intaas soo dhimasho iyo dhaawac leh ay taalo reer Puntland ba maxaabiis iska kala haysta horta eedoog weyn xamar male xamsana male fiqina male eedoog weyn adaa leh waayo nin waxa tay ciidankiisi ogaan waayo oo dayacay adaa la dagaalay PSF adaa la dagaalay adaa ka saaray ciidamada inay maanta xamar u gacan tuurtaan oo xamar ma taqaanay u tagaan inta isbaara dhigan lahaayeen Puntland adaa sabab ah qalad ki dhacay 10 ka baro ciidamadaas xuquuqdooda wixii isdhiibay bay rool gali xuquuqdooda si miisaaniyadda Puntland ku filan ciidamadaas mar dambana yeysan soo laaban wixii dhacay taas adaan ku leeyahay waa haddaad nin garasho leh aad tahay haddaad doqon tahay oo doqonay maxaa la iga soo helayaa baraan lumaya aad tahayna bari way ciidankaas halkoodii ka sii miisayaan fursadaad maanta haysataa ka faa'iideyso ciidamadaas ciidamadoodii ku celi tababar ha la geliyo bay roolkooda ha lagu daro
dibta meesha jirtay waxay adigay mushaar ka waayay dowladda federaalka u tageen wax mabaadiye qadiyada ku dagaalamayeen ma jirin waxaana taas cadeyn kugu filan markii la weeraray dhanka federaalkuna xiriirkoodu ma jirin cid kale oo siyaabo kale ay ku dagaalameen ma jirin nimankaas xuquuqdoodii miyaysan kaa soo caban qodobka labaad waxaan leeyahay ciidanka saddexda beelood ee hadda deegaanka ka raaxo gaaray ereyadeeda ku go'doonsan ee la hareereeyay waxba ha dagaalamina cashar ha idiin noqoto kuwii laga aamusay cashar ha idiin noqoto kuwii BSF lahaa ee weliba iyagu xataa taliyii boolisku federaalku asad diyaano xiriir fiican la lahaa hay'adda isagu ay maamulayeen qoyskoodu waxa ku dhacay ciidamada kaga tababar badan bay ahaayeen ciidamo dhisan bay ahaayeen waxa ku dhacay cashar idiin noqoto cashar ka qaata shalay markay BSF ahaayeen Puntland dhexdeeda joogaan say uga adkaadeen dani iyo maanta markay federaalku hoos tageen sidoo dani fursad ugu helay u gowracay cashar idiin noqoto sargaalka ama askariga maxbuuska ee maanta jeelka gorowa loo wareejiyay ee dowladdii soo dirtay ee sheegatay aysan ka hadlay waxba is dhibinina lama caamila dowladda iyo ciidankeeda hortaagan hubka qabaa'il baa leh qabaa'ilka ilaha u geeya dowladda ciidanka iyo dowladda hadda idin hortaagan lama caamila weligeed baa aqbala xaqiiqada meesha ka taagan inaad is dhiibtid ma ahan guul darro waa xeelad dagaal waxay ka mid tahay xeeladaha dagaalka ka mid tahay lama caamila ciidankaas iyo dowladdaas ma jira wax la yiraahdo federaal oo idin joogo ma jira wax federaal la yiraahdo aad ka tirsantihiin ma jira wax federaal la yiraahdo idin dabqanaya tusaale shambri baa laga joogaa xataa hal warqad lama soo qorin maxaad ka dhimanaysaa marka ma xamse iyo fiqi oo wiilashii BSF ee shalay dani ka adkaaday isagu magac intay shaabad ku dhufteen ay hodeen oo la laayay baad sugaysaa amaya xariyaha galmudug ee laga gurman lahaa daqiiqaday u jiraan ciidanka qaybtu laatanaad wadada u furan tahay maxay ku gurman waayeen xataa lama diyaarin shax dagaal oo hadday ciidan qaran yihiin oo Puntland ay wajahayaan looma diyaarin niman la maayo geeyay waxa laga rabay sawir ciidan baa meesha noo joogo mushaar kooban la siisiyo intaas adigu dani lagu cadaad intaasay ka ahay istiraatiijiyad xataa ciidan qaran loo diyaariyay ma ahay way hadduu ciidan qaran yahay mar horaba gurmad baa loo diyaarin lahaa dagaalka lala geli lahaa ma taqaanaayay waa laga tacsiyaday ilaa haddii la jabiyo ma dhicin shalay markii Jubbaland la weeraray raas kaambana la weeraray alfiqi iyo alcadaala iyo xamsi kulligood axmed madoobe waxay ku shaabadeen inuu ciidamo qaran weeraray ciidamada iyada wada ratiba lahaayeen maxay uga duwan yihiin ciidanka Puntland ciidanka Jubbaland la geeyay waxay uga duwan yihiin ciidanka gudaha dadka deegaanka ah kuma kalsoona xamse iyo dani ciidankaas laakiin si ciidankaas diyaarada uga soo reeray xamara waxay geeyeen Jubbaland ciidankoodii buu ah kama dhuuban karin laakiin si idinka shaabadii baa la idinku dhuftay dani baa la idinku diray Puntland baa la idinku diray Puntlandna dhibtii nimankaas idin geysteen iyo shaabadii idinku dhufteen buu adeegsaday danina sidaas uu dhiigina ku banaysay yaan dhiigina nimankaas magac ay idinku dhufteen shaabadii ku dhufteen idinku banaysan banaankaas ka baxa dowladina lama xamila qodobkaasina la yahay islaamiga qodobka labaad waa dani oo caawa gaalka ay ka sheegay inuu mar saddexaad is sharaxin Puntland balse xisbiyadii iyo doorashooyin qof cid loo guurayo oo siyaasiyiinta Puntland isku diyaariyaan doorashooyin xisbiga ka ahna uu qof ka sharaxay waa war wanaagsan laakiin si dani baan aqaanaayo ilama ahan inuu sameyn doono wax walbana waxay soo bixi doonaan boqolaal ballamood buu dadka reer Puntland la galay oo beenoobay dadka reer Puntland ku kadsoomi mayaan wax walba waxay soo bixi doonaan bilooyinka soo socda markuu dani farteeyo qodobka 79aad oo dhigaya in madaxweynuhu laba muddaxileed oo isku xiran uu is sharaxi karin laba muddaxileed hadduu madaxweyne noqdo mar saddexaad inuu is sharaxi karin qodobka 79aad dastuurka Puntland markuu dani ku gariiro bilooyin kadib isagoo isleh ciidamadii beelahana waad ka adkaatay haddaad furan kartaa ka hor dhici mayno waa qodob waa war wanaagsan waa wax la rabay dani ummadda inuu dhaafo oo uusan mar saddexaad is sharaxin haddii doorasho xisbiya loo guriyo haddii kaleba laakiin waqtigaa sheegi doono dhow qodobka 79aad markuu dani isku dayo inuu furto markaas ummadda reer Puntland way iska qabanaysaa way la dagaalamaysaa xabad bay la dhacaysaa
ما yeelayaan inay Puntland noqoto Jubbaland dadka reer Puntland hadday kaligii talis yeelayaan siyaad bara lama dagaaleen Puntlandna looma dhiseen dadka reer Puntland xasan xilligan dagaal kulama jireen haddii dani laga aqbalayo in mataqaanay uu Puntland ka dhigto isagu meherad uu isagu leeyahay Puntland ma noqon doonto Jubbaland niyadaadana ka saartaas guusha yar oo ciidamo shaabad ay ku dhufteen Xamse iyo Xasan aad ka gaartayna yaysan been ku sheegin dadka reer Puntland ba hubkooda qaadanayo xabad kula dhacayo banaankana ka marinayo qodobka 79aad waa kan ugu dambeeyo ee lagu dagaalami doono waa kan reer Puntland aad ku kala dhiman doontaan hadalladaada caawa gaalkacyaad ka sheegtayna dadku kuma qabaan ka qabaan rajo waayo boqolaal ballamood aad sheegtay baa beenoobay marka madaxweyne ummaddu way ku ogtahay inaad mataqaan isbedbedel badan tahay inaad xasan wiilkiisa ka yar tahay inaad xasan koobiyeysid inaad arday macallinkiisa aad adigu arday tahay inaad xasan ku dayatid ummaddu way ogtahay waxa meesha ka socdana waa la ogyahay yaysan been ku sheegin wiilal federaalku shaabadeeyeen oo mataqaanayay dadka reer Puntland federaalka ma ogolo xasan sheekh iyo wuxuu wato ma ogolo iyo mandatekiisa dhamaaday adiguna aad xoqotay shaabada Puntland baa lagu soo duulay yaysan been ku sheegin maalintaad qodobka 79aad taabatid waa maalintaad isku dayaysid inaad ummadda reer Puntland afduubatid awal baarlamaanka ku afduubnaa waxa la ilaashanaya waa qodobkaas ha isku day marnaba ka foga baan ku leeyahay warka aad caawa sheegtay ka dhabee marnaba ha isku day inaad mar saddexaad isa sharciga isku day ummadda reer Puntland mandatekaagu maalintu dhamaado ama doorasho qof iyo cod qabo ama tiida duneed hal aado halkaas ka mar laakiin si hadaad isdhaadid sida xasan sameeyay samee ama ciidamadii qabaa'ilka waad ka adkaatay wax farfartayso been bad isku sheegtay waana taad ku jabi doontid kuna burburi doontid aad bana islaam meel ka soo joogtaan